السلام عليكم. waxaan idin soo gudbinayaa waana muhiim ah oo ku dareensiinaysa inaad tahay qof waxtar leh. waxaad tahay mid adag, aad ayaad u adag tahay una awood badan tahay. maxaa yeelay waxaad wajahday arrimo buuro burburin kara. iyadoo ay sidaasi tahay, waad ka kacday oo is aruurisay, istaagtay oo dhoola cadaysay. waxaadba moodaa inaan waxba kugu dhicin, waaba sida adigoon murugo idilba albaabkaaga kuu soo garaacin. wejigaaga waxaa ka muuqata farxad iyo inaad ka soo gudubtay marxalado adag. adiga waad og tahay in allah uusan ku kalifin naf ilaa karaankeeda mooye. ha iska dareemin inaad tahay qof tabar daran. alla tala saaro, waayo qofkii allah jalla wacalaa tala saarta marnaba ma qasaaro. alla weyna kor ahaaye wuxuu yidhi, waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh. ruuxii allah tala saarta waa uu ku filan yahay. waxaan in yar kaa xasuusinayaa qisadii cajiibka ahayd ee nebi muuse calayhi salaam iyo fircawn dhex martay. badda ma qarqin nebi muuse calayhi salaam isagoo ah saqiir kuna sugan xaalad uu aad u tabardaran yahay. haddana waxay qarqisay fircawn isagoo ku sugan xilligii uu ugu awoodda badnaa. kibir dartiisna uu u sheegtay in bani aadam oo dhan uu ka sarreeyo. haddaba qof kasta oo alla ku xihan daciifnimadiisu ma ahaanayso mid dhibaato u geysata. qof kasta oo aan alla ku xirnayn awood kastuu leeyahay, si kastuu hubiya ilaalo badan uu u haysto, ma ahaanayso mid faa'iido leh oo wax tarta. sidaa darteed waxaad ogaataa inaad caalamka dhan wajihi karto keligaa. allah wuu og yahay awooddaada wuuna ku kaalmaynayaa. keliya waxaa lagaa rabaa inaad kacdo mar kasta oo aad kufto. inaad kacdo mar kasta oo aad kufto. inaad kacdo mar kasta oo aad kufto. inaad kacdo mar kasta oo aad kufto.